بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته صاحبي lagu soo dhawaada kanaalka Yuusuf Ramaan magacaygu waa Yuusuf Maxamed Cabdi Yuusuf Ramaan halkan waxaan rabaa inaan kusoo gudbiyo barnaamijyo kala duwan oo aan uga hadlaya mowduucyo kala duwan inaan xakan kusoo gudbiyo maanta waxaan rabaa inaan la wadaago muuqaal qurux badan oo ah event ay soo qabanqaabisay xarunta Rawda Youth Center oo ay ka qaybgalayeen rag aqoon-yahano ah oo ka yimaada barsooro ah oo ka yimaada xagga Talyaaniga ka socda jaamacad ku taala dalka Talyaaniga ragaas oo bixinaya seminar ah kaasoo ay ugu hadlayeen mowduucyo fara badan oo kala duwan qaybtiisa koowaad ayaa maanta baxaysa bilina bixi doonta maalmaha soo aadana bixi doonta programkaas ayaan joognahay waxaa rabaa inaan dhammaantiin isla daawano oo ila aragtaan waxyaabaha barnaamijkaas ku qabsoomi doona aniga Yuusuf ahaan waxaan diyaar u ahay inaan soo gudbiyo muuqaalo tayo leh inaan soo gudbiyo waxyaabaha aad ka heli doontaan muuqaalkeena waxaad ku arki doontaan intuu socdo wax kasto eventigaasi ka dhaca. All, I'm delighted to extend my gratitude to the chairman of Rawda Youth Center, Mr. Ahmed Faqi, for facilitating this training and the capacity building for peace and security in Somalia. سفيرك صوماليا الطليانية بروفيسور خالد العو وجوجان كيسي يتاجر هذا الجترة يوصيه برنامج كان. أقول حاجة على عبد الله سؤال بعضنا يعني carissimi permettetemi di parlare solo perché sono molto contento anche di vedere di incontrare oggi i miei studenti che hanno studiato la lingua italiana, poi anche coloro che hanno lavorato con me all'università, all'accademia e da altre parti anche di altre università. Grazie così il النقطة أما جانا على النقطة أما عندنا عدولة النقطة خارجية الجزء المهم. هذه أنا موضوع سنوات يا أبو الحمد فرح سنة هي كنتي موضوع عمانته ماشى ما تشيل شرايو ما في هذا فرح سنة هي محايا لي الحالة بكرة ربنا أقبل ورموله بكرة ربنا أقبل ورموله موضوع عمانته عن ماشى ما في دودينه وقت يقابل دلوقتي صوت جوي هم صوت جوي سجال كلا ما صوت كلا يصير إنجليزي وكلا إيطالياني وكلا فرنسي وكلا محل سني يقوم أرضي جامعة يقوم أرضي سي تلقوا صوت كبتو الحمد لله تعالي صوت حلو كبتي إن عن محل هذا فشل كي بلامبر مقناي تبيستي مقناي كي ميكانيك مقناي كي عفنات كذا إلا وقلت إن يرى جامعة هذه أنت تتكبر يعني محل هذا عن فرسمة هذا وصوت كابتن وصوت اسمين وصوت اسمين ويعرف اللي يسوق كسبري باهي بوكلي حاس يا كنتي ما قالوا لي عمر ما أجري يسمى تاسع كنتي أنا وحاول ودراسة صعنا وحقوقها ولي علامنا وفتقر إن نسوي صور قابل ماشي ما تقدر مكة وجعلها مكان دقيقة أنا حكومة كيشنا ولا شيء كيسرو مع المهم يسون دونا ما يعني أرجع إن أكتب قبل ما أصير علامة اللي تشغل عليه هو سو قابل هنجعلها وكي وحمد هذا مواضيع المعنى وكله وحاول أن نقدم فائدة سوى بروجكت المعنى وكله وحاول أن نلاقي فائدة سوى ذلك أن من الورد إنه يرجع مكان يواجه نبدأ ولا لقى جميع تشغل أي سوق على وحاكي سادنا لي فرسمة وسي بابا آية مركي كاسي بابا آية فرسمة وحاكم هاي دحين كان وارما فرسمة ما هم بارسن وكيل ما فرسمة بارسن تاي دخل يحم بارسن تاي أصلح بارسن تاي حضارة بارسن تاي هيستوري هم بارسن تاي مثلا هذه كويس إيكاب بابا مثل السوق فرسمة قاعد إيكاب بابا وحكاب بابا أفكار وكاب فرسمة كيل بيت فرسمة معي كون ده كون تاي وتوني كون كان حيبري كون تاي فرسمة قاعد وحاسور الأفكار بتاعها سووا شو معروف عنها وحاجة أنا حاجة هذي إسبيين هذي مخنيين هذي محمد قالون هذي داري. Okay, and they did. They launched attack against Iraq. Okay, but by doing that, they in some way open to the crisis because they starting to move against the norms, the institution,
the practices that they wanted to support. They started to move against the idea of liberal international order. Okay? So if you are doing something like that, you lose legitimacy. And this is exactly what happened by 2003 until 2008. And in 2008, we've got what I said before, financial crisis and the rising of new players. Okay? The second timeline is the long timeline. The long timeline is related more to, we can say, deep problems, deep issue. The idea that the international order is or has been built or shaped by Western countries was not only related to the new international order. It's related since the 18th century, when we've got imperialism, colonialism. Okay? So we have a very good scholar, really one of my favorites is Hadley Bull. Hadley Bull is one of the founder and the member of the English School of International Relations. Okay? English School of International Relations is a realist school, but Hadley Bull was in some way a guy who put together some idea of liberalism with realism. Okay? And he wrote in 1991 a very good article that I suggest you to check on Google. You can find a PDF, an open access PDF, and you can read it. Because in 1991, he wrote something related to revolt against the West. Okay? At that time, he understood that beside all the idea of Americans and European ideas, there was something that were moving under the radar in the global south or in the rest of the world. Okay? In the West, the end of the Cold War opened to the idea that, well, now everyone around the world will follow us. Okay? Will adopt democracy, market, capitalism. Okay? That was the idea. There was another scholar that maybe you hear, that was Fukuyama. 2012, the Constitution of 2012 subdivided the country into 47 counties out of 8 provinces. So the 8 provinces were split into many counties. Okay? And a second, this is important for Kenya, it had only one National Assembly, one parliament, now has 2 chambers, a low and a high chamber, a Senate and a and a parliament, and a House of Representatives. Okay? So Kenya was here and moved here on the arrow. Okay? These are 3 important examples of federation. United States, almost all the people know about United States, and other 2 big, very, very big countries in the world, Nigeria, of course, and India. We don't have so much example of confederation, okay? In the past, Switzerland was a confederation. I will show you a map of Switzerland. It was a confederation, and after time, after some centuries, it moved on this line
to become more a federation, started as a confederation, so an association, a free association of sovereign states, of sovereign realms that decided to join together and to form a super state, okay? However, this did not endure for long, and a political crisis erupted after some centuries. There was a civil war, and the Swiss Confederation maintained still the name of a confederation, but became federal, okay? And perhaps European Union today is something we could say it is a confederation of sovereign states that decided to give power to a central institution, the Commissione Europea, etc., etc. Okay? So a confederation is made of loose alliances, a very weak center, because in the case of European Union, we have still the capital city, Paris, London, Rome. If Rome decide not to abide to a decision, can oppose with a veto, okay? And sovereign, therefore, sovereign members. One key institution in a unitary state is having an army, a central army. In the European Union, each state keep a different army. Okay, they have some units putting together. They go for exercise in case of war, of an aggression from a rival state. They can join the forces, but all the armies of the European state are divided, okay? It is not the case of these three countries, okay? These three countries has a central army, for instance, okay, both India, Nigeria, and United States. Is it true that United States maintain how they call the local militia, like the National Guards? National Guards are controlled by the member states, like Oklahoma National Guard, New York National Guard. If I ask you, where do you put Somalia? Is it a federal, a confederation, or a decentralized state? Federal, okay. And where do you put on this arrow, on this continuum? In the middle, are you sure? Not consider only what is written on the Constitution. Consider the reality. Here, not here. Confederation? No. Are you sure? Okay, you will discuss for tomorrow this issue. Okay. Somalia Federation is made of many states. Puntland, Somaliland, and down up to Jubaland, okay? However, when Mogadishu decides something, do you think that Hargeisa say yes? No. Ah, okay. and what Garowe will do? We do know. We do not know exactly. Okay, it's a delicate issue, I know that, but we must stay on the reality, okay? Sometimes it's written that, however, the reality is different, okay? بسم الله الرحمن الرحيم ومحسنتها يوسف waxaan aad ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galay tababarkan loo fidinayay dhalinyarada Soomaaliyeed ee aqoonta leh oo aqoon-yahanada ah dalka Ingiriiska wuxuu isugu jiray mowduucyo kala duwan tababarkan mowduucyada waxaa ka mid ahaa federaalka ayuu ka hadlayay qaybaha kala duwan ee federaalka haddii ay ka jiraan ma fahamsantahay dhibaatooyin la xiriira federaalka waxyaalaha kale oo iyadana laga dooday waxyaalaha kale oo iyadana aad looga dooday waxaa ka mid ahaa ma fahamsantahay nidaamka caalamka ma fahamsantahay inuu
oogaa mugdi ku jiro fahamsantahay isbeddelo badan ay yimaadeen liberal order systemka adduunyada arrintaas iyagana waxaa meesha ka soo jeedinayay muxaadarooyinkan 2 professor oo ka tirsan jaamacadda Trieste ee dalka Talyaaniga waxaana soo qaban qaabiyay barnaamijkan ururka Rawda uu madax ka yahay maxamed Axmed Faqi waa tallaabo hore loo qaaday oo dhalinyarada lagu horumarinayo wacyigooda fahamsantahay bulshada ah iyo wacyigooda siyaasadda ah marka barnaamijku wuxuu ku soo dhamaaday jawi aad u fiican dhalinyaradana waxaa loo kala qaybiyey qaybo kala duwan si ay uga doodaan barnaamijyada looga hadlayay oo ay ka mid yihiin federaaleynta oo uu ka mid yahay nidaamka caalamka ma fahamsantahay oo ay ka mid yihiin barnaamijyo kale oo ayagana lagu horumarinayo dadka aad u mahadsantahay Yusuf. My name is Federico Battera. I'm professor at the University of Trieste in Italy, Department of Political Science. Department of Political Science. I'm very happy and honored to be here and to give lessons and collaborate with this institution in order to deliver some lessons regarding international order and federalism and so on with a great audience. Thank you, Yusuf. بسم الله الرحمن الرحيم مقعي وحلي إبراهيم حسن حسين مقعي وحلي إبراهيم حسن حسين كم قاعد يروني وحنا يستحفي مدح بنان فلنقي سياسة دي أرمها أمنية waxaan u arkaa barnaamijkan barnaamij dhalinyartu in lagu inbawgareeyo oo muhiim ay tahay in dunida ay fahmaan oo amniga ay fahmaan maadaama adduunyada ay isbedeshay oo hanaankii sharciga ee adduunka ku dhaqmi jiray wadamada yaryarka shuruucda caalamiga uu ilaalin jiray wixii oo dhan maadaama collapse uu jiro oo wax kale ay soo bixeen sida Mareykanka inuu hadda Venezuela uu ku duulay uu ninkii madaxda ka ahaa ee la doortay shacabku doortay inuu soo afduubtay dalkiisa uu ku maxkamadeynayo in Israel ay waxay rabto iska sameynayso waddanka rabto iska aqoonsato inay dadka reer Gaza inay dhameynayso cid ka hadlaysa aan jirin in Iran la iskaga duulo oo la iska duqeeyo oo adduunkii aan ka hadlaynin in Greenland Mareykan uu yiraahdo waan qabsanayaa Yurubna ay daawanayso marka adduunkan isbedelka xoogan ka socdo in la fahmo marka professoro wadamada reer Yurub oo horumaray jaamacadaha ugu waaweyn ka yimid oo Soomaali ah oo cadaan ah oo madow ah ayaa tababarka bixinayay waxaana barnaamijkan taabageliyay ama suurtageliyay xarunta dhexe ee Rawda waan kaga mahadcelinaynaa maamulkeeda iyo maareynteeda iyo dadka teamkaas ee arrinka wado dhalinyaro tiro badan oo aad u tiro badan baa ka soo qayb galay rag iyo dumar leh waana ka faa'iideysteen kala jiro aqoon sideedaba la sheego waxa waaye inaad qof kasto helay inaad ka daalacatid oo aad u hoos fariisatid marka professor aad u fahansan maanta waxay ugu cajiibna aan maqlo waxay ahayd sida federalismka dalkeeni waxaan ka waayay wadan anaga aan raacsanay ma federal ba ma confederal ba ma decentralized ba waa fahmi waay tusaale kale Kenya oo kale waa la qeexay Nigeria oo kale waa la qeexay wadamo badan la qeexay Switzerland oo kale waxa la yiri confederal waa laakiin dalkeeni wali wax xal waa loo leeyahay marka inaan dalkeeni waxyaalaha adduunka ka socdo horumarada ka socdo dawlad wanaagga sida loo maamulo wixii aan barno maadaama aan dhalinyaranahay generation aan chance markaa helno dalka inaan ugu adeegno taasaan ugu muhiimsan sidoo kale waa mahadsan tahay xarunta dhexe ee Rawda sidoo kale Yusuf Roman السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مجيء جامعة علافي وحياة جاد وفرحسنها إن هاي متكمدة خدنا قاعدنا هاي كورسكا وبركاته مجيء واسم محمد أحمد waxaa maanta dhabaan hadda noo soo ilaaday barnaamijkeenii maalinta koowaad oo host gareynaysay organizationkeenan Rawda waxaan noo imaaday wasiiro xildhibaan iska leh iyo macallimiinta Talyaaniga ee professoro iyo macallimiinta Talyaaniga ah maasha Allah maanta iyo ardaydeena oo aad ugu faraxsan dhowr 40 iyo dhowr arday ah marka waxaan leeyahay maanta aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay Bruno macaan waxaan leenahay idinkana waa mahadsantihiin sida quruxda badan gacan ugu geysateen gabdhaheena quruxda badan nala shaqeeyeen walaasheena xaawo wiilka hortu ahay Yusuf mahad Cabdixamiid anigana ka koow ka ahay ana isku hambaliyayna maanta inoo soo ilaaday maalinta koowaad ee barnaamijka
muxuu ahaa waxa ugu fiicnaa ee barnaamijkan kaa xiisa geliyay ama xiiso badan aad ku dareentay intuu barnaamijkan horta arday qurux badan dhisan beejkooda dhowr afartan kor intii u dhaafay ilaa konton intii afartan ilaa afartan shan caruur oo maxay arday ah oo wada wax baratay jaamacada kasoo baxay oo haddana maasha allah wada labisan qurux badan intelligent ah hortaas maba aaminaysaneyn Soomaaliya arday qurux badan oo jaamacada uga soo baxeen qurbaha wax loogu baahdo maba jirto banawar taas number 1 Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacayga waa Saadi Maxamed Ibrahim waxaa ka tirsanahay organizerka teamka ka shaqeynayay Rawda Youth Organization maxaa la dhahaa waxaa yani qabanaynay barnaamij tababar oo looga hadlayo amniga iyo siyaasadda Soomaaliya inay ka faa'iideystaan dhalinyarada Soomaaliyeed qaasatan dhalinyarada wax bartay inay wadanka wax badan ay ka fahmi karaan koorskan aad wuxuu ahaa koors loo daneynayay oo dhalinyarada intooda badan markii la fiiriyo very interesting ahaa wayna jeclaayeen so koorskii markaa bilaabnay aniga waxaa qaabilsanaa teamka registrationka ama diiwaangelinta dhalinyarada sameynayeen so waxaa arkay dad badan oo koorskan u baahan inay iska diiwaangeliyaan kana faa'iideystaan barnaamijka intuu soconayo dabcan barnaamijku wuxuu lahaa shahaadooyin aad u qiimo badan oo jaamacada Talyaani xitaa ka mid yihiin ay bixinayeen Soomaaliyana jaamacadaha ay ku jiraan so marka isdiiwaangelintaas waxaa dhigi karaa isdiiwaangelin yani xiiso leh aheeday dhalinyaro badan ayaa soo dalbadeen oo gaaraya ku dhawaad ilaa 70 ay arday ah oo dhalinyaro ah oo qaar xataa macallimiin xitaa ah jaamacadaha ka socdaan arday ka socoto maxaa la dhahaa centerkan Rawda Youth so waxaa sameynay dhalinyaradii aad ay noogu bateen anaga targetka arabnay inaan u sameyno iyo dhalinyarada soo codsatay aad ay u kala bateen markaas anagana waxaa sameynay in dhalinyaradii aan yani qaadan weyn oo awoodeyna ay ka badato so waxaan dhahnay waxaa u sameynaynaa liisas kaleento ina barnaamijyada kala qabanayna qaar kamid ah uga faa'iideyno ardaydan tirada badan iyo dadkan tirada badan soo codsadeen barnaamijkani aan u sameyno kala soocida u sameyno soo qaabka u kala saareen waxa u kala saarnay qaab random ah oo aanan qofna aanan u eexanaynin oo si qurux badan u kala saarnay soo team waxa u dirnay maxaa la dhahaa inay barnaamijka u suurtageli weysay inay ka qayb qaadan waayeen laakiin barnaamijyada kale inta waiting list inoogu jiri doonaan Yusuf adigana aad kaaga mahadcelinayaa ka qayb qaadashadaada dadaalka waxaan aad ugu faraxsanahay maanta inaad wada daawateen barnaamij aad qurux badan oo gabi ahaantiisa ka hadlayay eventiga ay soo qabanqaabisay xarunta Rawda Youth Center wuxuu ahaa barnaamij aad u qurux badan oo ay sida hore idinku soo sheegaba ay qabanaysay xarunta Rawda ee ka soo qayb galeen rag barsoona oo ka socday jaamacad ku taala Talyaaniga wuxuu ahaa barnaamij qurux badan oo ardayda ay ka faa'iideysteen waxa ka soo qayb gashay dad gaaraya tiradooda 44 qof sida xogta aan ku helnay waxay dhaheen barnaamijka waxa soo codsaday dad aad u fara badan laakiin limitka maadaama meesha lagu qabanayo ahayd meel limit gooban loogu talagalay dad kooban loogu talagalay ay suurto u gashay ay u suurtooday kaliya 44 qof waxay wax qurux badan inkastoo marti kale ay joogtay waxay ka hadleen waxyaabo fara badan waxa dadkii ka soo qayb galay xarunta waxaad wareysi ku aragteen barsoor mid kamid ah barsoorada bixinayay seminaarka qaybtiisa koowaad waxa kale aragteen isla barsoor kale oo sano kamid ahaa qaybtii dambe barnaamijka lecture ka bixinayay waxa kale oo xusid mudan inaad kanaalka ka daawataan asaasaha xarunta Rawda Youth Center Dr. Axmed Faqi asigana inuu qayb ka ahaa barnaamijka وانا فرنتيسنا عاد كداوتين قيبي هوري برنامجكا جبي هامبا organizerka barnaamijka soo aasaasay xarunta dadkii ka soo qayb galay macallimiintii barsooradii barnaamijka ka qayb qaadanaysay sidoo dhici lahaa iyo qof walba kaalin ku lahaa waxaan leenahay waa maasantiin idinku daawadayaashana waqti aad ku bixiseen ilaa inta aad isla soo gaarnay aad u maasantiin oo muuqaalka daawateen waxaan rajaynayaa qof kasta inuu like gareeyo subscribe gareeyo hadda kadib waxaan diyaar u ahay in xaggan kusoo gudbiyo muuqaalo tayo sare leh oo aan uga hadlayo mowduucyo fara badan oo idinku waxtariyadii ah waa maasantiin oo walaalkiin Yusuf Maxamed Cabdi Yusuf Rahmaan tani kulankeena dambe siyaasi nabadgelyo